waxaad soo dhaaftay beledweyne oo waxaad xagga kale ka soo gashay feerfeer adigoo deegaanka tegay oo ama qabri dahaare kasii bixi karay oo feerfeer xaggeen ka aadi karay maxaad xaggaa deegaanka uga soo gashay oo aad qorshaagu muxuu ahaa maxaad dabacsanayd qorshahaygu wuxuu ahaa maadaama oo feerfeer iyo beledweyne ay iskaashi dhaqan iyo mid maaragtay ayna isku dhow yihiin laba magaalo oo inta badan dee qayb ka mid ah reer feerfeerna waaba reer beledweyne inaad la socotiin kale mooyaane marka qaar ka mid ah asxaabtaydii reer beledweyne halka ila joogay waxay igula taliyeen inay feerfeer noo dhowdahay isla markaana ay fiicnaan lahayd inaan booqdo aniguna waxaan idhi warde magaaladaasi waaba anoo tegey waxay iga dhigan tahay anoo qabri dahar tegey inkastoo safaradii deegaanka aana bilaabin hadday sidaa u dhowdahay aan tagno marka amnigaan ka waraystay marka dhalinyarada waxay ku dhaheen beledweyne ilaa feerfeer waa amni waa midda kale dhexdana waxaa degan ciidamo Etoobiyaan marka xoogaa Jawiil la dhaafo degmada Jawiil ciidamo Etoobiyaan degan marka saa ay tahayna taliya Baakay aad baan u salaamayaa mar kale wuxuuna siiyey laba gaari oo ciidan ah oo iska kana raaca maadaama iyaga aan marti u nahay wax walba iska dhici kara moogta anaguna waan sii sheegaa meesha aan tagahayo marka laba qabaal oo ciidan ah oo aniga i galbinahay iyo waftigeyga baana lagu daray iyadoo meeshu ammaan iska tahay haddana in case baa la yidhi haydin raacaan ilaa iyo feerfeer horta laba feerfeer baa jirta dee inaad la socotay in kale mooyaane feerfeer Soomaaliya iyo feerfeer deegaanka Soomaalida ama Ethiopia marka tan Soomaaliya aad hadda looma degana aad uma weyna way yar tahay laakiin way dhisan tahay tan kale ee deegaanka Soomaalida yaa weyn oo dhisan oo population badan labada dhinacna waa dadku way wada joogaan ehelkii marka meeshii waa tagnay waana lagu soo dhaweeyay si fiican baana loo soo dhaweeyay dadkaasi waa culimadaydii way aniga dadaan ixtiraam gooni ah u hayo way haddii ma garanaysaa reeruhu isku beerbeerayaan reerka waa ku beeri lahaa waxba kaama hortaagna ma haddii la isku beerbeerayo dee hadda la iskuma beeree adaa xariska meesha hadda ugu fiican tahay meesha dadku beeri kartaa waagii la lahaa maaragtay reer baa lagaa saariya wax iyagu qorshahaygu ma jirin moogtahay boorami iyo aadan yabaal iyaan rabay inaan ku biiro waaga laakiin baryahan dambe iyaga kuwaasa hadda aan kusoo daray marka waan booqanay meeshaas si fiican baa naloo soo dhaweeyey ari baa naloo qalay haddii la yidhahdo waxaa jooga niman culimo ah oo aan isdhaqan garanayno marka waa soo kaftanay waxaan ku yidhi dee magaalo walba waxbay u xil saaran tahay baan ku yidhi caanimadayda marka feerfeer waxaan u xil saaray baan ku yidhi iyo dadkeeda iyo culimadeeda jimanka baraha bulshada fadhiya inay waxay kaga akhriyaan halkaa haddii laga soo gudbo hawsha idinkaa ka mas-uulan ku waa la soo duceeyay oo la soo quraan saaray xagga baraha bulshada meeshu meel jinni weeyday xagee baraha bulshadu weeyday xagee baraha bulshadu TikTok gaar ahaan jinniya fadhiya iyo balaayo dhan baa fadhida iyo ciyaal suuqnimo iyo meeshu meel nin weyn uu galo duruufta ma nala gashay ma anoo dhex taagan ma saragnay marka waxaan idhi hadda maalmihii hore ee aan arrimahan ku cusbaa salaadii iyo waxyaabo badan baa dib ugu noqday hadda waxaan la qabsaday marka waxaan ku yidhi bal quraan isaaro oo wakiil lahaa awliyaatiine adeer awliyanimadiina aan dareema baan ku yidhi oo iisoo duceeyeen oo caaqilkii magaalada xataa dhabarku iga soo dharbaaxay iyo duqii magaalada waa salaamaya dhammaantood rag iyo dumarba waa nala soo dhaweeyey gurigii martida degmada feerfeer deegaanka Soomaalida baa nala geeyey odayaashii waan la soo kulmay oo si gooni ah waan la soo kulmay magaalada iyo arrimaheeda iga soo warameen iyada qudheedu abaar baa ka jirtay oo xilli barwaaqa inaan imaado bay fiicnaan lahayd bay dhaheen magaaladan soo lugaynay oo intaan lug xagga kaga soo bilownay iyada xataa magaalo ganacsi bay u ekayd oo baabuur waaweyn baa taagnayd oo waxay qaadayeen aan warhayn waxaan soo booqanay ceel caan ah oo la yiraahdo
كبسلي ومارت ماشي كويا magaalada لا ka cabta مقالة كعبته ولقي ما يستاهل يروا تلياني بعد سي بوندو يدنا قديم هو تلياني ديسي لامي deegaanka Soomaalida iyo ilaa beledweyne ilaa Soomaaliya mariyo Talyaani u dhisay baa meesha ku yaala oo burburay oo iska waxaysan marka dad walaalo ah oo isjecel oo maaragtay nidaamsan oo akhyaar baan meesha ku soo bartay kadibna isla casarkiiba waanu ka soo dheelmanay anigii waftigii la socday oo dib baad u dheelmateen oo horkacay gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo dib u heshiisiinta beledweyne oo isna safarka nagu weheliyay asal ahaana dee reer feerfeer marka safar runtii fiican oo maaragtay aan ku soo faraxnay buu ahaa dee meelo jawiilna markii dambe aan laabanay baan sii marnay degmada jawiil waa meel yaroo meel maaragtay waxaa ku taala la yiraahdo kalabaydhkan adigu waxaa taqaanaa wajaale marka la dhaafo hargeysa boorami iyo loo kala leexdo baa taqaanaa adigu iyo wajaale kalabaydh kale xaga ku taalo weyn oo baabuurta ganacsiga wada ee inta badan deegaanada Soomaalidu mid Baydhabo u socda mid Jigjiga u soo socda mid Burco u socda mid Muqdisho iyo xaga u socda waxba halkaas ay maraan marka anagoo meeshii iska daawanayno oo sawiro iyo wax iska galgalayna gudoomiyihii baa noo yimid Jawiil oo aad isna halkan uga salaamayo magaaladan ka wareysanay waan ku soo yarnasanay waan ku soo shaahaynay kadibna waxaan ku soo dheelmanay fiidkii waxaan ku soo dheelmanay magaalada beledweyne anagoo nabad qabna ciidamadiina way naga tageen anaguna waxaan aadnay hoteeladanadii intaas waxaa dheer waxaan isku diyaarinay wixii intaa ka dambeeyay hal caqabad ba ay haysatay oo mar walba oo degmo timaado Soomaaliya si aad safarkaaga u sii wadato waa inaad Muqdisho ku noqoto arintaas caqabad bay ugu noqotay waxa diyaaradahan raacayo farabadiyay taasaa kamid ah sababtoo ah diyaarado degmooyinka u kala baxa ma jiraan rakaabkii baan buuxin karin marka mar walba oo degmo tagayo waa inaan Muqdisho ku noqdo haddana Muqdisho ka soo baxo aan tabayaa safarkii lugta maaragtay gaadiidkii dhulka arintaas aad u fiicnaan lahayd oo waxa dhibaya waa arrimo amni dartood waa amniga dad badan oo waxaa jira waliba aan xamili karin diyaaradda kharashkeeda waxa laga yaabaa diyaaradda ugu yaray $80 weey ta kaleeto waa 130 150 100 iyo tigidhku marka dad badan oo xamili karin baa jira dad badan oo waxaa dhacaysa marka in adeegyo yar diyaaradihii la saaro marka qaarkood boorsadaadii baa laga yaabaa in caano lagu la xareeyo meeshii oo marbayba caano igaga daateen boorsadii diyaaradda la soo saartay marka qaybtii dhulka ee caanihii iyo decolobtii iyo wixii lagu qaadi lahaa dadka caadiga iyo dadka danyartii raaci lahaayeen baa meesha ka maqan iska iman doontaa reer beledweyne waxaan odhan lahaa oo tala ah dadkeenu inta badan waynu talinaa oo waanu isla talinaa laakiin wixii ka fulaa yar magaalada beledweyne fatahaadda webigu aad buu u dhibay in badan aad sheegaysi aad buu soo noqnoqday saad u sheegtayna magaaladu waa magaalo ganacsi isku tashi unbaa ka maqan reer beledweyne kolley wax badan waa la qabtay isku tashi unbaa ka maqan intay hadda lagu jiro kulaylaha iyo abaaraha haddii maayarka magaalada duqa magaaladu iyo culimadu ay u xaytaan intay dhaqaalo laga ururiyo dadka ayaguna si lilaahi ay u maareeyaan oon la cunin waxaan aaminsanahay waxa ay uga baahan yihiin cid kale in ay uga qabsan karaan sababtoo ah dhaqaalo yaroo iska ururiyeen baa wax badan u fulin kara marka intaasaan kula dardaarmi lahaa culimada iyo maamulku intay iskaashadaan si lilaahi ayagoo ay ka tahay inay iyagoo kaashanaya qurba joogtooda wadanka iyo ummadda islaamka ahba ciddii wax ku tarsanaysa in ay magaalada webiga ka hagaajiyaan waana la samayn karaa wax yar marka arrimaha maxaa la yidhaahdaa u baahan in aad adigu qabsato meel kale in loogu qayleeda waa iska dhib badnaanaysa oo asaas weliba aan kugu daray caliyow matalaadda dowladda federaalka markay noqoto matalaadda ugu ballaaran bay nimankaasi ku leeyihiin dowladda federaalka ugu yaraan 5 wasiir oo federaal ah inay ku leeyihiin baa la sheegay taniyahow xildhibaano badan waa leeyihiin xildhibaanaduna dad saameyn leh weeyaan oo markay noqoto jagooyinka marka Hirshabelle laga yimaadaba haddana xaggan saameyn ballaaran bay ku leeyihiin ayaga naftigooda waxaan rajeynayn nimanka dagaal adag way galeen al-shabaab ay dagaal aad uga galeen
waana ka guulaysteen dabcan waxaan rajaynaynaa xildhibaanada naftigoodu iyo wasiiradaasi bal inay si lilaahiya oo mutadawacnimo ah oo dadka ay u shaqaynayaan ayagoo u damqanaya inay arrintaa ololaheeda nafteedu ay galaan oo waxay qurbahana way ku badan yihiin weliba ku darso qurbahana aad bay ugu badan yihiin